السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرين جنال كمركز السود وهذا مقال كم حرب أنا ندخل وذاقم مانتا حير بكتيدا أيا جعنت لوجلي كيسكي إيمي باك إيه سالم سعيد ساكا إيجا أيانا إلا يحد كباران دقيو قوان كجارية إن أي دم بليهين إيه إن أي سن دم بلهين هذا بقى حير بكتيدا وأيدين شرح دونا ضد فربدن حير بكتي وإلا يابان دور جار نهري وانو شرحي iyo sidoo kalena shalay dacwadoogayaasha iyo qareenada kala difaacaya Amy Back iyo Salim Saeed oo hadaladii xiritaanka ay soo bilaabatay dacwadan 10kii bishii labaad ee February ee dhamaatay waxa lagu waday 4 toddobaad inay socoto laakiin hadda toddobaadkii lixaad ayay ku jirtaa marka waxa lagu haystaa lacagtii 250 milyan ahayd ee la musuqmaasuqay xilligii coronavirus uu jiray oo loogu talagalay caruurta in lagu quudiyo 70 qof ayaa bishii September ee sanadkii 2022 dacwad lagu soo oogay 37 kamid ah hadda dambigooda waa ay qirteen inta badan ba kiiskan Amy Back iyo Salim Saeed ayay maqaati farahan loo soo istaajiyay 5 waa tii hore dambi loogu helay 2 waa la xukumay 3 waa xukun sugayaal sidoo kalena waxa jirta 3 qof oo wadanka ka maqan marka Amy Back iyo Salim Saeed ayaa waxay ahaayeen dadka ugu muhiimsan maadaama inta badan hadda dadkii ay dambigooda qirteen marka 12 xeer beegti ah ayaa kiiskan ilaa iyo 10kii bishii hore markii uu soo bilowday dhageysanayay wax yar xeer beegtidaan idin sharaxo xeer beegtidu waa dad muwaadiniin Mareykan ah oo degan halka ay wax ka dhaceen waraaqa ayaa loo diraa marka ay maxkamadda yimaadaan garsooruhu su'aalo ayuu weydiiyaa waxyaabaha ugu muhiimsan ay kamid yihiin kiiskan maxaad kala socotaa markaas marka la xusho marka xeer beegtida Soomaali waa loo diiday dadka East Africa ka yimid sababtoo ah dadka inta badan kiiskan ku eedeysan waa Soomaalina waan ognahay ree qansax iyo ree qurac iyo kala baxan marka sidaa darteed Soomaali dhan waa laga ilaaliyaa xeer beegtida inay kamid noqdaan marka juurigu waxay dhageysanayaan dacwada maalin kasta waa ay soo xaadirayaan cadeymaha la soo bandhigayo muuqaalaha ahaadaan sawiraha ahaadaan hadallada halkaas laga jeedinayo waa ay dhageysanayaan markaas kadib marka dacwadu ay dhamaato iyaga ayaa kiiska go'aan ka gaaraya dadkan dambi ma leeyihiin mise ma laha haddii aan wax yar idin Soomaaliyeeyo dad reemiyigeena Soomaalida waxaan ogeyn markii wax la isku qabto odayaal ayaa loo yeeri jiray odayaashu labada dhinac ay is eedeynaysa ay dhageystaan kadibna iyaga ayaa go'aan gaari jiray Soomaha waa sidii oo kale marka juurigu waa oday dhaqameedyadii oo kale waa dad loo yeeray oo kiiskan dhageystay kadibna iyagu go'aan ka gaaraya marka xeerbeegtidu 3 nooc baa go'aan way ku gaari karaan inay yiraahdaan dadkan dambi ma lahan inay yiraahdaan dambi ayay leeyihiin iyo inay yiraahdaan dambiyadii lagu soo eedeeyay qaarna waan ku helnay qaarna waan ku waynay intaasba ayagay u banaantay maadaama kiiskan kiis adag uu yahay maasaakana loo dhiibay xeerbeegtida kiiskan gacanta ay garsoore Nancy Brassel iyaga ay u dhiibtay lama ogo isla maanta ay go'aan ka gaari doonaan ma bari ay ka gaari doonaan ma bari dambe ay ilaa ay jimcaha kulli waxa laga yaabaa xitaa inay la dhaafto ilaa jimcaha ka hor inay go'aan gaaraan waa macquul marka Amy Back waxa lagu eedeynayaa 7 dambi Salim Saeedna 22 dambi hadii dambiyadaasi lagu helo in ka badan 30 sano oo xabsi ayaa mid waliba uu mutaysan kara marka arintaasi waa in yar oo dulmar ah oo aan idin dulmarayay xeer beegtida waxay tahay kiiskan sidii uu ku soo bilowday iyo waliba sidii uu yahay marka closing argument waxyaabaha la yiraahdo dacwadu marka ay soo ilaato maalinta ugu dambayso waxa jirto opening argument wax la yiraahdo hadallada furitaanka iyo closing argument wax la yiraahdo hadallada xiritaanka marka dacwadoogayaashu waxay si toos ah ula hadlayaan xeer beegtida dadka juuriga 12 qof ay waxay doonayaan inay ka dhaadhiciyaan dadkan dambiga lagu soo eedeeyay waa ay leeyihiin qareenada Amy Back iyo Salim Saeed aad kala difaacayna iyaguna waxay doonayaan xeer beegtida inay ku qanciyaan dadkan dambiga lagu soo eedeeyay in aysan lahayn marka si toos ah ayaa dacwadoogayaasha iyo qareenada labada eedeysana kala difaacayaba xeer beegtida ay si toos ah ula hadlayaan marka aan ku hormaro marka dacwad ogayaasha dacwada ku soo oogay dowladda federaalka ayaa dacwadan ku soo oogtay dadkan maadaama lacag federaal ay ahayd marka dacwad ogayaasha waxa shalay u hadlay ninka ku xigeenka xeerlaariyaha oo la yiraahdo Harry Jacobs ayaa hadaladiisu waxay qaateen muddo hadaladiisa xiritaanka muddo 2 saacadood waxyaabaha uu ku sheegay ayaa waxa kamid ah waxa uu yiri wax kasta xeerbeegtida isagoo la hadlayay wax kasta oo aad maqasheen iyo wax kasta oo aad aragteenba waxay ahaayeen cadeymo dadkan eedeysanayaasha laga soo gudbiyay
marka sidaa darteed ayaa waxa uu yiri Amy Back waxa ay ka iibisay ninkan la eedeysan iyo waliba dadka kaleba American Dream ayay ka iibisay riyadii Mareykanka ayay ka iibisay macnaha lacag fara badan ayay siisay ayuu ula jeedaa waxa uu sidoo kale sheegay haddii Amy Back aysan ahayn arintan maba aysan dhacdeen maxaa yeelay ayuu yiri iyada ayaa waxay approve gareynaysay goob kasta oo sheeganaysa inay doonayso inay cunto bixiso marka goob kastaba ay tiraahdo anaga waxaan doonaynaa meel hebel ayaan nahay meeshaas ayaan maqaayad ku leenahay inaan cunto iyada ayaa waxay tahay qofka diiwaan gelinaysay ansixinaysay lacagta u dilaysay wasaaradda waxbarashada marka loo soo diro ururkeeda Feeding Our Future-na dadkan sheeganaya caruur inay quudinayaan sidaas darteed ayaa waxa ay ku siinaysay lacagtaasi marka wuxuu yiri iyada ayaa cuntooyinkan beenta marka la soo dirsado qofka ansixinayay iyada ayay ahayd marka sidaa darteed wuxuu yiri Amy Back la'aanteed arintan gabi ahaanba maba aysan dhacdeen waxa uu yiri waxa ay si wada jir ah ay u shaqeynayeen Amy Back iyo Salim Saciid tilaabo kasta oo ay qaadayeen si musuqmaasuqan ay u sameeyaan sidaa darteed waxa uu yiri labaduba waa ay ka taajireen waxana uu sheegay ma aysan ahayn arintan in laga taajiro waxa ay ahayd in caruur la quudiyo laakiin arintaasi bedelkeeda ayaa la sameeyay oo caruurtii lama quudin laakiin waxa ay tahay in laga taajiray lacagtaasi Harry Jacobs waxa uu sidoo kale uu intaasi ku daray in cuntadan beenta ah oo la sheeganayo in caruur lagu quudinayo qof kasta ayaa u jeeda ayuu yiri in ay been tahay xitaa ilmahayga yar oo 4 jirka ah arintaasi waa ogyahay waxaana u muuqataa ayuu yiri arin aan la inkiri karin in ay tahay waxa sidoo kale intaasi ku daray Harry Jacobs ku-xigeenka xeeralaaliyaha oo si toos ah xeerbeegtida ula hadlayay waxyaabaha la soo bandhigay waxa kamid ah Salim Saciid guri $1 milyan oo Plymouth uu ka iibsaday sidoo kalena qasri uu ka iibsaday Park Avenue iyo Minneapolis iyo sidoo kale goob ganacsi oo 2.5 milyan uu ka iibsaday oo Ohio uu ka iibsaday laba gaari dhamaantoodba waxa uu ku iibsaday lacagihii uu ka helay lacagtii loogu talagalay cuntadii loogu talagalay in caruurta lagu quudiyo Amy Back sidoo kale waxyaabaha lagu soo eeday waxa kamid ah in fasaxyo lacaga fara badan ay ku baxayeen ee aaday sidaas darteedna lacagahaasi ay ahaayeen lacagihii ay ka heshay Feeding Our Future xitaa waxa lagu soo bandhigay qoraalkii ay fariintii ay u dirtay mid kamid ah eedeysanayaasha oo ay dhahaysay waxayba u muuqataa in aan burcad noqonay sidaas darteed waxa uu xeerlaalihu ku-xigeenka xeerlaalihu uu sheegay Amy Back iyo Salim Saciid arintan iyagoo og ayay ka qayb qaateen oo si qiyaanaha ay u sameeyeen lacagtan 250 milyan waxa ay sheeganayeen 91 milyan oo caruur inay quudiyeen xilligii coronavirus-ka uu jiray sidaa darteedna waxa uu yiri ma aysan jirin xitaa mid kamid ah dadkii marqaatiyaasha oo maxkamadda ka hor marqaati furay ayaa waxa uu yiri xisaabtaasi xisaab iskeenaysa ma ahan waa uu soo xigtay xitaa Harry Jacobs marka sidaas darteed waxa uu yiri waxa halkaasi ay ku soo bandhigeen cuntooyinka beenta way soo dirsanayeen oo caruur ay Feeding Our Future waraaqa intay soo madmadoobayaan ay dhahayeen intaasoo caruur ayaan cunto siinay marka loo geeyay Amy Back waa ay ansixinaysaa wasaaradda waxbarashada ee gobolka Minnesota ay u direysay wasaaradda waxbarashaduna markaas lacagta waxay ku soo shubaysay Feeding Our Future markaas kadibna Feeding Our Future lacagta dadkaasi goobaha ay sheeganayeen in caruur ay ku quudinayaan dadka iskale ay lacagtaasi sidaas ay ku siinaysay marka jeegagaasi ayaa la soo bandhigay xitaa Salim Saciid jeegag uu qoray oo ah ama kickback ama bribes laaluush oo la siinayay Amy Back ama dad kale ayaa halkaasi lagu soo bandhigay marka sidaasi ayaa waxa uu sheegay ku-xigeenka xeerlaaliyaha uu si toos ah isagoo xeerbeegtida ula hadlayay ayaa hadaladiisii xiritaanka uu ku sheegay sidoo kale qareenada difaacayay labadan eedeysan Amy Back iyo Salim Saciid iyaguna waa ay difaaceen sababta lacag loo siiyay waxay tahay inay difaacaan dadka iyagu ay u doodayeen marka haddii aan ku hormaro qareenka Amy Back oo la yiraahdo Kennedy Odibok ayaa hadaladiisii xiritaanka waxa uu ku yiri ma lagula xisaabtami karo oo mas'uuliyadda Amy Back dusha lagama saari karo tilaabooyin ay dad kale ay sameeyeen waxa uu sidoo kale uu isku dayay qareenka Amy Back in uu meesha ka saaro macquulnimada qaar kamid ah marqaatiyaashii maxkamadda la soo hor istaajiyay oo iyagu horay dambigooda u qirtay marka sidaas darteed ayaa waxa uu sheegay su'aale kama taagno in dadkaasi ay been u sheegeen Amy Back marka shaqaalihii kala shaqeynayay ayuu leeyahay Feeding Our Future ayaa iyada been u sheegay oo khiyaanay marka
marka waxa uu yiri dadkii ay aamintay oo shaqaalaheeda ka midka ahaa ayaa waxa uu yiri been u sheegay dadkii sidoo kale la taliyaashii ay aamintay ayaa sidoo kale been u sheegay marka waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo haddii aad xeer beegtida tihiin iyadu si kalsooni ku jirta ayay arrintaasi u waday laakiin waa la khiyaamay ayuu yiri sidaas darteed ayaa waxa uu sheegay xitaa uu xeer beegtida uu xasuusiyey in Amy Bark markii markhaati furka maxkamadda loo soo hor istaajiyey ay sheegtayba in iyadu ay baaritaan ku samaysay qaar ka mid a goobihii sheeganayay inay cunto bixinayaan markii ay musuqmaasuq ku aragtayna ay lacagtii ka jartay gebi ahaanna ay halkaasi kontraktigoodii ay ku kansashay marka sidaas